الله الرحمن الرحيم إذا لهانتين بداوضيال meel kasto aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland warkana waxa idin soo jeedi doona anigoo Jamaal Axmed Naasira wafdigii ballaadhna uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay degmada Gar-adag madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wafdi ballaadhan uu hogaaminayay ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Gar-adag ee gobolka Sanaag madaxweynaha ayaa soo dhaweyntiisa waxa ka qayb qaadanay bahda waxbarashada oo iyadu ilaa iyo saaka waa berigi safaf dhaadheer ugu jirtay sidii ay u soo dhaweyn lahayd madaxweynaha isla markaana ruuxay caleemo qoyan iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa madaxweynaha soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanay waayeelka waxgaradka cuqaasha iyo siyaasiyiinta degmada iyo maamulka degmada oo iyagu ahaa kuwa u heelan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada loo soo galbiyay dhanka gobka degmada Gar-adag ee ay ku caanka tahay halkaas khudbada uga jeediyeen madaxweynaha iyo wafdigiisu dadweynaha reer Gar-adag ugu horreyn waxa halka ka hadlay Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi maayirka degmada Gar-adag Faarax Aadan Ciise iyo Suldaan Carab Cabdi Cali isaguna waxa halka ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada waxaan ku shaqo ragnahay oo ku hadlaya halka cadeynayna inaan ku soo socday toban sano madaxweyne kalena raali ka ahayn oo wardiisku xaq caawinayna iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada degmada Gar-adag baan ku soo dhaweynaya waxaan leenahay madaxweyne iyo wafdigaaguba ku soo dhawaada ayaanu ku soo dhaweynaa adiga iyo waftigaaga ballaaran ee aad horkacayso degmada Gar-adag dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida salaadiinta ugaasha siyaasiyiinta culimaadudiinta waxgaradka garabada haweenka ardayda dugsiyada ciidamada kala duwan iyo dhammaanba bulshooyinka si dhaba inaan idin soo dhaweeyo ugu waxtarka badnaa waddanka ilaa iyo maalintii aynu istaagnay inaad tahay baanu kugu soo dhaweynayna waxaanu kaba madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa inaad tahay kuwa ka dambeeya kuwii ka horeeya markiinu kuwa ka dambeeyeyna والسلام على من لا نبي بعده مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد محمود مروضة مدحوينها أمينة محمد جردة وزيرك وحبرشدة وزيرك مدحوينها وزيرك عاصماتك وزيرك بوصها وزيرك أرماها الدبدة وزيرك أرماها الجبهة وهذا تلي وزيرك بيرها وزيرك دبدجينتا وزيرك كولياشا دمانتين waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyaguna halka waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Faarax Cilmi Geedole wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha علي محمد ورعد وزيرك وزارة عافمادك سليمان عيسى حقلته guntiga gabagabadina waxa xaflada soo afmeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo halkan ka hadashay ama fadhida iyo madaxda iyo dhammaan bulshooyinka reer Gar-adag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne odayaashii halkan ka hadlay ee ugu horeeyo Suldaan Carab ورنتي عن شعرها إلى هالكل مهدوي الوعي إسقى يسرادين كرو دورة ودور كامدك مدها ورنتي عن قصفين كرو ودرب الحميرين تحوينا جمهورية الصوماليلاند مرونة كوبان وفكي مدحوينا جمانتي يقول شدة نقر على بكورة حبيب السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka labaad waxaan u ducaynayaa madaxweynaha oo ilaahay siiyey awood iyo codsigiinni
waxaan idiin sheegayaa inaanu MCH noqonayo iminka ee uu noqonayo heer sanfal xukumo oo looga yimaado shaqooyinkooda intaa markaan ka gudbo waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan ku soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم تدوينها غير قرارات يمدح حدوده يستعدينتا هذه آد بعدكم هاد علينا سيدا شرفت قيمة عليه أدوسو دويسين إلى هذا اللي إلى هذا كبيروا نجوه ارتباطين هذه آد بعدكم هاد علينا فركي وقول هسه قرارك بها ورارو يمد وقتي أنا ها ولا كشري بهالكريمة كيف كانوا تساسا لبسوا دويي كاجر فربنا بقول على تدخل الشعب الكاري ما ترى متعبان بالغاية وحنا هاي صفقة بالغات سوقلي كيان مرينا دلكم مرينا ماركو مرينا وحنا وجدنا بايات دلك نلو بيلا آد فربريه أم سوقني sidoo kale iyaguna safarka madaxweynaha waxa ku weelinayay marwada koowaad ee madaxweynaha koox kamid ah golaha wasiirada ومدر آن سعيتي في قرنك الدقمة قرضك madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa xariga ka jaray mashaariic cusub oo laga hirgeliyay gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco halka uu qaar kalena dhagax dhigay warkaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Burco Cabdisataar Cabdullaahi Sabri madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay saaka mashaariic aad u tiro badan qaarkoodna xariga ay ka jireen qaarkoodna ay dhagax dhigeen madaxweynaha Somaliland ugu horreyn waxa uu xariga ka jiray aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco kaasoo ay maalgelisay wasaaradda madaxtooyada Somaliland isla markaana ay si rasmi ah u dhistay shirkadda Barako Group oo kamid ah shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala dhismayaasha Somaliland madaxweynaha ayaa xariga jaristaasi kadib waxa uu cabiray dareenkiisa maadaama ay tahay markii ugu horeysay magaalada Burco aqal sidan oo kale u bilicsan laga dhiso ugu faraxsanayaan furamaanta halkan guri state house kan oo muddo badan laga shaqeynayay Burcana u baahnay maanta aan aragno inuu wax weyn oo qiimo qaali leh inuu yahay aad iyo aad u fiican wanaagsan oo raaxada u saxna xalayto aad iyo aad madaxweynaha Somaliland intaasi kadib waxa uu bogcad ballaaran kala hadlay dadka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo soo buux dhaafiyay bogcad ballaaran oo ku taala xarunta maamulka gobolka Togdheer Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تدوينها من برعة عادي بكم بإذن الله سيدة قيمة يقالة عدنوسو دويسين تاسو عادي الله وحافر حدوي النوع إن الدشن إن المسورين إن قول بدر هذا الكاملة قيمة بدر هرا لو تجين مدحنا تجين عدكنا تجين وما تكفر حسنات أركان مدح دوري أوتمد وحن مشاريع معروسة في الري وندركان وجورني تذكر وجورني ومدي يدرك يدركان سحرنا إلى وحن كبر يعني نقول قولي مال الشغنة إذا كان عاديات بكم هتلاقيان سود ويسين إذا كان وحي مشاريع الفرية يجمع عدي يوحسن تجينا سيد سود وانت هاد سود ويسين عادي بكم هتعلنا سيد عدد يدق كيدين هاي عاد بقول ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa uu intaasi kadib xariga ka jiray wado cusub oo laamiya oo dhex marta bartamaha magaalada Burco taasi oo ay maalgelisay dawladda hoose ee magaalada Burco wadadaasi hareeraheeda ayaa waxay soo buux dhaafiyay boqolaal dad ah oo ka tirsan dadweynaha magaalada Burco oo shucuurta iyo dareenka u hayaan madaxweynahooda guud ahaanba sacab iyo yididiilo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Somaliland sidoo kale waxa uu dhagax dhigay wado ay dawladda hoose dhisayso oo laami ka dhigayso oo isku xidhi doonta jaamacadda magaalada Burco iyo guud ahaanba gudaha magaalada maadaama jaamacadda Burco ay in doora ka baxsan tahay magaalada
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xariga ka jaray xarunta hijiimada ee wakaalada biyaha ee magaalada Burco dib u habeyn lagu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa habeenkii xalay waxa uu soo gaaray guud ahaanba magaalada Burco iyadoo tan iyo xal iyo saakana dadka reer Burco guud ahaanba ay carabka ku hayeen imaatinka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isla markaana shucuurta iyo dareenka dadka reer Burco uu ka duwanaa imaashiyihii hore u iman jiray magaalada tan Burco madaxweyne Axmed Cabdisattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar shaqo ugu maqnaa wadanka China ayaa dalka dib ugu soo laabtay warkaasina waxa inoo eegi doona wariye Muuse Warsame Guuleed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Injineer Xuseen Cabdi Ducaali oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda macdanta ee wasaaraddaasi ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safar shaqo ay muddo 7 toddobaad ugu maqnaayeen dalka Shiinaha halkaas oo ay ku qaabileen mas'uuliyiinta shirkadda Donson Energy Group oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca macdanta ee dalka Shiinaha oo iyadu dhawaan Soomaaliland la gashay heshiis hordhac ah oo dhinaca macdan baarista ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Injineer Xuseen Cabdi Ducaali oo qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay waxa uu ka warramay ujeedada safarkaasi waxaana xusay in mas'uuliyiinta shirkadda Donson Energy Group ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dalkaasi waxa kale oo uu sheegay in safarkaasi ahaa mid taariikhi ah isla markaana albaab cusub u furay Soomaaliland waxaana kamid ah hadalkiisii waxa ugu horeeyay runtii oo arrintii aan halkan idinka sheegaya in si rasmi ah ay shirkadii aan maalin noogu timi berigi dhaweyto ay noo xaqiijisay in ay ballanqaadkii ay noo ballanqaaday inay macdan baadh ka samayso dalka Soomaaliland inay oofinayso macdan baadhkaasoo dhowr waji yeelanaya wejiga ugu horeeya oo noqonaya macdanta lagu baarayo qamar sinaaciga ama la yiraahdo remote sensing mineral resource investigation oo muxuu qamar sinaaciyada Shiinuhu leeyahay iyagoo adeegsanaya inay dalkeena intuu leeyahay inoogu baarayaan macdanta kheyraadka dalkeena ku jira sida u fahmo waxay kala yihiin meelaha ku kala jiraan taas markay dhamaato waxa dabeetana macluumaadkaas la sii dabagelayaa in ay keenaan muxuu ahaayay engineers iyo geologists baaritaankaas sii wada oo dhulka iyagu yimaado oo soo dega dalka soo dega oo baaritaanka halkii ka qaada taasna waxaa la yidhaahaa complete geological assessment waxa la yidhaaho baaritaan rasmiya oo markaa xiganaya macluumaadkii uu qamar sinaacigu uu keenay inay magaranaysaa halkaa iyaguna muxuu ahaayay ay ka amba qaadaan oo meelihii uu qamar sinaacigu tilmaamay waxyaabaha reeli ugu muhiimsan ee kheyraadkeena laga filayo inay sii xaqiijiyaan oo aynu magaranaysaa markii aynu ogaano dalkeenan macluumaad taama ka hayn karo wixii kheyraadeen dalkeena ku jira macaadina runtii waxay shirkadu la kaashanaysaa macaadin baadhka laba group oo muhiim oo China groupka ugu horeysa waxa la yiraahdaa China RS ama waxa weeye remote sensing nimanka qamar sinaaciga China uu muugtay mas'uulka uga ama hay'adda mas'uulka uga qamar sinaaciga China oo waxyaabo badan adduunyada intuu leeyahay muugtay ka baara waxa ay kaloo adeegsanayaan geological bureau-ga gobolka Yunnan ay caan ku ah kheyraadka department-kooda geology-ga China oo dhan really caanka ka ah ayaa iyaguna dalkeena ka shaqayn doona insha Allah oo inoo iman doona marka labadaas markay is adeegsadaan waxaan filayaa markii ugu horeysay dalka Soomaaliland waxaynu gacanta ku dhigaynaa macluumaad taama oo sugan oo aynu taabo karo oran karo dalkeena waxa ku jira halka iyo halkaasna ku jiraan insha Allah intaasna waa macluumaad caynkaas intaas oo xaddiga ayaa laga helayaa waxaan runtii aad iyo aad u moogtay aan muhiimadda u saaray shirkaddan sidii hore u moogtay aan wadahadallada ugu furay in ay nagala shaqayso sidii dhuxul dhagaxa dalkeena aynu filayno inay ku jirto oo muddo dheer wasaaraddu ku hawlanayd sidii aynu maalinkan maanta macaadinta dhuxul dhagaxda ula soo bixi lahayn in aynu maalinkan maanta hayno shirkaddii wax nooga fuqay waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta Cabdisalaan Xasan iyo agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaraddaasi Ibrahim
gudoomiyaha baanka Somaliland oo weheliyo agaasimaha baanka dhexe ayaa kormeer ku soo maray sariflayaasha magaalada Hargeysa waxaana sheegeen in sixir bararkii ka jiray dalka hoos loo dhigayo warkaasi waxay noo eegaya wariye Xamse Cali Bulbul gudoomiyaha baanka Somaliland Cabdidir Cabdi iyo agaasimaha baanka Somaliland Abdullahi Xasan ayaa si wada jira maanta waxay kormeer ugu soo mareen sariflayaasha magaalada Hargeysa kormeerkani waxa uu ka dambeeyay kadib markii saraka uu ku yimid dollarka gudoomiyaha baanka Somaliland oo goorantii ka hadlay kormeerka ay ku tageen sariflayaasha waxa uu sheegay in baanka Somaliland uu ku dadaalay culeysna uu saaray sidii sixir bararka loo joojin lahaa dhinaca sarifka lacagaha qalaad isagoo ka hadlaya goorantii ujeedada kormeerkiisa gudoomiyaha baanka Somaliland waxa uu ku yiri xil annaga saaran inaanu hadiyo goor sidii aan hoos ugu ridi lahayn doolarka aanu ka shaqadeeda galno marka doolarka kaco maciishaduna way kacdaa sida dee hadiyo goor ay tahay doolarkuna waa guyo jiilaal guga waqtiga xoolaha aynu dirno doolarka waa u guga waqtigan oo kalena doolarka waa u jiilaal labada goorbana baanku hawlgal buu leeyahay marna doolarka suuqa uu ku sii daynayo marna doolarka uu suuqa ka ururinayo sida lacagtu dee marba doolarka siduu u kacay marka ballan baanu ku qaadaynaa haddaanu central bank nahay inaanu sii wadno hawsha aanu doolarka hoos ugu dhimayno agaasimaha baanka Somaliland Cabdullahi Xasan ayaasna waxa uu sheegay in baanka Somaliland uu markasta ku dadaalayo sidii bulshadiisa loo daryeeli lahaa isagoo ka hadlaya waxa uu yiri waxaanu anagu iyo gudoomiyaha halkan uu nimid inaanu sariflayaasha aanu xaalada sarif suuq marayaan ogaano inaanu dhiiri galino oo aanu tusno inuu baanku diyaar u yahay inuu ay wada shaqeeyaan inaanu maanta go'aaminay horena u go'aaminay maanta aanu sii go'aaminay inaanu heerka sarifku halkii uu gaaray aanu gaarin uu dib uga dhaco waxa kale oo nimid inaanu ku dhiiri galino inay baanka la shaqeeyaan oo ay lacagta forgery qabtaan oo marka maxaan ku lahaayay ay dhibaato timaado ay naga nala soo xidhiyaan wada shaqeyn fiican baa naga dhaxaysa sida uu sheegay barkhad oo sariflayaasha ka midkiina waxaan anaguna ku dadaalaynaa inaanu gacan buuxda siino waxaanu ka codsanaynaa inaanu gacan buuxda ka helo saasaan ku shaqeynaa hadii la ilaaho qaar ka mid ah sariflayaasha caasimada magaalada Hargeysa ayaana waxay soo dhaweeyeen tallaabooyinka baanka Somaliland uu qaaday dhinaca sarifka iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay kormeerka mas'uuliyiinta baanka Somaliland waxaana yiraahdeen anigu nin sariflaa baanay oo jooga suuqa dhexe suuqa sarifka waxaan joogay 18 sanadood wali agaasime iyo gudoomiye halkaan noogu yimi maanta ka horta maana arag oo yidhi baalku waa sidee qabtaan maxaa sixir bar ka warrama maayirka caasimada Hargeysa ayaa ka gudoomay fanaanada Sahro Halgan laba damdamis oo wata qalabkoodii taas ay Somaliland u soo direen jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan wadankaasi Faransiiska warkaasina waxay noo hayaa wariye Khadar Quule maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko way weeliyaan xildhibaano ka tirsan dawladda hoose caasimada Hargeysa ayaa maanta ka gudoomay laba damdamiise oo wata qalabkoodii fanaanada u dhalatay wadanka Jamhuuriyadda Somaliland ee Saara Axmed Maxamed Saara Halgan qalabkani oo ay fanaanadu ugu tala gashay dawladda hoose caasimada Hargeysa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid waxaanu aad ugu mahad celiyay fanaanada Saara Halgan oo ku sifeeyay gabadh muwaadinad ah oo mar walba garab taagan wadankeeda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dadkeeda alaabtan oo ah dibdemiska oo aan hore loo wareegnay qalabkan waa qalabkii ku jiray cusbitaalka guud baa lagu wareejinayaa wixii dibdemiska iyo waxaana dawladda hoose waxaan uga mahadnaqaynaa alaabtan oo ah alaab aad u faa'iido badan intaasi kadib waxa goobtaasi iyaduna ka hadashay fanaanada Saara Halgan oo sheegtay in damdamiskani ay ka keentay dalka France lana kaashatay jaaliyada ku dhaqan wadanka Faransiiska jooga waxaan aad ugu mahad celinayaa Shukri Xuseen Jawar iyo Xuseen Shanabeyle ayaan aad ugu mahad celinayaa iyaga la'aantooda aan alaabtii suurta geliyeen oo si fiican aad ila soo caawiyay oo ila soo helay waxaan kaliya ma qaban dad badan oo Faransiis ay soo caawiyay aad baan ugu mahad celinayaa sida sharafta maayirka iga gudoomay alaabtan dhinaca kale isla goobtaasi waxay fanaanada Saara Halgan ugu deeqday alab kala duwan oo ah kuwa isbitaalada kuna wareejisay maamulaha guud ee isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Umar Askar
oo ay ku wareejisay qalab kala duwan oo iskugu jira sariiro. Dr. Axmed Cumar Askar waxa uu ugu mahad celiyay fanaanada Sara Halgan sida wanaagsan ee mar walba ay u xasuusto wadankeeda Jamhuuriyadda Somaliland. runtii waxa weeyaan waa wax lagu farxo waxa leenahay jazaa'ukallahu khayr hawsha aad soo qabatay waxa ku jira qalab caafimaad oo ay ka mid yihiin qalabka wax lagu dhayo nabadda lagu daweeyo waxa ku jira mashiino badan oo iyagana ah mashiinada maartay lagu baaro ama indhaha ama qaybo kala ahaato oo caafimaadka waxa ku jira sariiro waxaan rajaynaynaa alaabta waxa lagu faa'iideyn doonaa dadka buka sidii loogu talagalay maartay u soo qaadan dadka shidada waxaan balan qaadaynaa inay gaari doonaan dadkii loogu talagalay. gebagabadii fanaanada Sara Halgan oo sheegtay in agabkani ay uga wakiil tahay jaaliyadda ku dhaqan dalkaasi Faransiiska ee u dhashay wadanka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanay sheegtay in ay jaaliyadda Somaliland mar walba garab taagan yihiin dalkooda iyo dadkooda. hanti dhowraha guud ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dad sifo sharci darro ah u soo cashuurtay gaadiid oo la xukumay. warkaasi mar kale waxaynu eegaya wariye Xamse Cali Bulbul. hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay maxkamad la soo taagay xubno sifo sharci darro u soo cashuurtay gawaadhi. hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland Maxamuud Cabdi oo magaalada Hargeysa kula hadlayay TV-ga qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliland uu markaas ku dadaalayo sidii musuqmaasuqa iyo wax istamarinta loo joojin lahaa. isagoo ka hadlay hanti dhowrku waxa uu yiri marka waxa waa baaris aad u fadhad oo talaabo la qaad karin ilaa aad gaadho xaqaaqa runta ah oo aad cadayso in baabuurku aanu cashuurayn dokumentskuna been yihiin aad runtii dhulka u soo gashay ee Somaliland keena hasaata dabagal dheer baan ku sameynay baabuurta madaxweynena sidaan hore aan mar hore uga kulanay waan qabanay dadna waxaan u gubnay hay'adaha garsoorka way socotay burco hore oo maqasheen biliiska burco baaran hore loo xukumay Hargeysa iyo sharafteed maxkamadeedu iyana waxay dhamaatay baabuurtaan ku qabanay Hargeysa dhexdeedii baabuurtaasoo hore aan horan wareys nooga ka yeelanay waxay ahayd runtii tarig amba khiyaamo aad u dheer وحاجة documentation كأبا documents كبارات خصوصا عطو واحد يدا وأدك تايسا الله لا يلا استعمالي documents اللي سكنجري وكمبيوتر لو قاضي وهطنا قوة خالق وصي قاضي وإيك كوي نفتها أما صد أخرى صارت كوي نفتها إيه جماعة أدك تاي دلتنا وحاودي قوة جارة فأوصل مركز إدي بدك تماطو أي الله وصل تلقلا يدو وحولي بقولينهين بكسو جلس حاجة حدود الضبارقة marka waa aragtay sida qof u joojin kara ama u arki kara ama dadka baabuurta noocaasi wataana iyo dadka falalka ku daba ku dhex jiraaba in kastoo la xukumay shalato 3 sano iyo wax ka badan lagu xukumay sida la socotaan dadkii sameeyay baabuurkan madaxa hore ka soo sameeyay marka hore baabuurta uu soo sameeyay dokumentska baanaadka haddana waxa weeyaan in kulli dadku marka wax kala ibsanayaan taxadiraan aad iska hubiyaan notary public notaries iyana aad u hubiyaan. waddankaasi Ruushka ayaa digniin adag u diray wadamada reer galbeedka kadib markii gobolka Crimea uu goostay in uu ka mid noqdo waddankaasi Ruushka. wadamada reer galbeedkuna waxa ay sheegeen inay cugna qabatayn saari doonaan waddankaasi Ruushka. warkan hayaa hadaba waxay noo eegaysaa wariye Ishrax. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dalkiisu uu tallaabo ka qaadi doono haddii Mareykanka iyo Yurub ay ku soo ragaan cunaqabatayn. dowladda ku meel gaadhka ah ee Ukraine ayaa goor sii horeysay sheegtay in hal askari looga dilay iska hor imaadyo oo ka dhacay Crimea. arrintan ayaa timid saacado yar kadib markii ay hogaamiyayaasha Ruushka iyo gobolka Crimea kala saxeexdeen heshiis Crimea ka dhigaya qayb ka mid ah Ruushka. dhinaca kale militariga Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah askartooda uu iska hor imaad ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawac. ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in khilaafka uu salaysan Crimea uu hadda isku bedelay colaad hubeysan.
waxa uu ugu baaqay Mareykanka iyo Britain in ay gacan siiyaan Ukraine. dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay qaabka uu Ruushku kula wareegay gobolka Crimea waxaana ay ku tilmaamtay dhul xoog looga qaatay isla marhaantana meel ka dhac ku ah madax banaanida Ukraine. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu inuu cuban qabatayn dheeraad ah ku soo rogi doono Ruushka. diyuuradaha wadanka Israel ayaa duqeymo u geystay goobo ay degan yihiin ciidamada wadankaasi Syria. warkana waxay noo eegayaa wariye Jimcaale aw Cali. diyuuradaha dagaalka Israel ayaa duqeeyay goobo ay degan yihiin ciidanka Suuriya oo ku yaala buuraleyda Golan kadib markii ay miino ku dishay 2 askari oo Israa'iiliyiin ah jiida dhulka buuraleyda ah. duqeyntan oo dhacday goor habeenimo ah waxa ciidanka Israa'iil uu ku sheegay bayaankaas in duqeyntaas ay la beegsadeen fadhiisan ciidanka Suuriya leeyahay xarun tababar iyo goobo ay madaafiic yaalaan. waxaana wararku sheegayaan in diyuuradaha Israa'iil duqeeyeen fadhiisan ay leeyihiin ciidamada Suuriya oo ku yaala mandaqada Al-Qandiriya ee buuraleyda Golan. bayaankan waxa kaloo ay ciidanka Israa'iil ku sheegeen in goobaha ay duqeeyeen ay gacan ku lahaayeen weerarkii la beegsaday salaasadii ciidanka Israa'iil. waxaanu bayaanku intaa ku daray in maamulka Bashar al-Assad uu dusha u ridan doono wixii dhibaato ah ee soo gaadha. wararka laga helayo dhinaca kale ciidanka Israa'iil waxay kaloo ay sheegeen in miino lagu qarxiyay meel ku dhow mandaqada Al-Siyaaj ee xuduudda ay Suuriya la wadaagaan. minadaas oo la kacday gaari ay leeyihiin ciidanka Israa'iil oo jidaasi marayay. waxaa la rumaysan yahay in Israa'iil gudaha dhulka Suuriya ay duqeeyeen dhowr jeer tan iyo sanadkii 2013. intaasna daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii aanu idinka haynay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. warkan iyo warar kale faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimaha iyaga soo socda. anigoo Jamaal Axmed Naasira iyo waliba bahdii kale ee igala qayb qaadatayba waxaanu idinkaga tagaynaa is aragti maqal dambe ka hor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.